السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa xaqiiqa inaynu dhamaanteen wada raadinayno in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayno barakayo wax kasto aynu haysano. Barakaduna waa mid ka timaada xagga Ilaahay. Waxaanan muuqaalkeenan maanta idinku soo gudbinayaa 8 arrimood oo kamid ah furayaasha barakada oo dhamaantood lagu sheegay Qur'aanka Kariimka iyo axaadiista Rasuulka Kaleehi Salaatu Wasalaam. kuwaas oo kala ah furaha koobaad akhriska Qur'aanka Kariimka ku dhaqankiisa baristiisa iyo barashadiisa iyo furaha labaad oo ah xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo in la badiyo Ilaahay xuskiisa xilli kasta iyo goor kasta iyo furaha saddexaad oo ah sadaqada gaar ahaan sadaqada si hoose loo bixiyo iyo furaha afraad oo ah xiriirinta qaraabada iyo furaha shanaad oo ah in subaxdii xilli hore la kaco si loo raadsado arsaaq xalaal ah ama marka qofku uu salaada subax tukada aanu hurdada ku noqon iyo furaha lixaad oo ah tukashada salaada iyo in salaada la hagaajiyo iyo sidoo kale in lagu dadaalo in salaada lagu tukado jamac iyo furaha toddobaad oo ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala si dhaba loo tala saarto oo aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala si dhaba u tala saarato adigoo ficilkiina la imanaya iyo furaha sideedaad oo ah in la badiyo istighfaarta lana joogteeyo dhinaca kalena shayga uu nabigu calayhi salaatu wasalaam dawo ku sheegay ama dawo ahaan u adeegsaday waxa xaqiiqa inuu shaygaasi yahay dawo kama dambaysa sababtoo ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa ku socday waxii xagga Ilaahay ka yimid laakiin dawooyinka la isticmaalo maanta waxay ku dhisan yihiin tijaabooyin iyo baaritaano kuwaas oo saxna noqon kara qaladna noqon kara haddaba toobinka ayaa kamid ah arrimaha nabigu calayhi salaatu wasalaam uu isticmaali jiray dawo ahaan toobinka oo ah in jidhka laga soo saaro oo laga soo nuugo dhiigga faasidka ee aanu jidhku u baahnayn haddaba xeeldheerayaasha caafimaadka ee waqtigan ayaa waxay sheegeen faa'iidooyin caafimaad oo tiro lahayn oo toobitaanku jidhkeena u leeyahay waxaana kamid ah marka qofka la toobo dhiigga qofku wuxuu noqdaa mid nadiif ah dhammaan marinada dhiigga ee jidhku waxay noqdaan kuwa si fiican u shaqaynaya waxaana jidhka ka baxda sunta ama haddii ay jirto cilad kale oo dhiigga soo raacday markii hore waxaana firfircooni badan yeelata maskaxda waxaana xoogaysta xasuusta iyo fahamka qofka waxaana ilaa xad hoos u dhaca subaga raaca dhiigga ee jidhka ku haya dhibka waxaana awood badan yeesha habdhiska difaaca ee jidhka waxaana wanaagsanaada korriinka lafaha iyo caafimaad qabkoodaba waxaana si fiican u shaqeeya oksijiinta jidhka waxaana hoos u dhaca xanuunada dhabarka iyo qoorta hadiiba ay hayaan qofka waxaana wanaagsanaada nidaamka hurdo ee qofka sidoo kalena waxa wanaagsanaada caafimaad qabka maqaarka sare ee jidhka